wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo maalintii saddexaad ku sugan magaalada Boorama ayaa maanta mas'uuliyiinta dawladda hoose kala qayb galay mashaariic dhinacyo kala duwan ah oo ay qaarkood xadhiga ka jarayeen qaar kalena dhagax dhigayeen. wasiirka ayaa ugu horeyntii waxa uu xadhiga ka jaray wado isku xidha xaafadaha Sheedheer iyo Jariska Xuur iyo wado kale oo halbowlaha magaalada Boorama. mas'uuliyiinta dawladda hoose oo wasiirka warbixin siinayay ayaa waxay carabka ku dhufteen sanadka waxaan rabnaa gobolka Awdal waa sanadkii horumarka wadada arkaysan imika waa wado qiyaastii 2 kiiloomitir iyo badh baa noo qorshaysan waxa hadda noo qabsoomo gacanta laga qaaday 1 kiiloomitir waxaan ilaahay ka rajaynayaa inta noo hadhayna 1 kiiloomitir iyo badh ayaa dhiman intaana ilaahay inuu noo dhib yareeyo waxaan marka aan soo istaagno dhinaca dakhliga degmada waa ka baaxad badan yahay marka wixii naga xoog roonaada waxaanu rajaynaynaa inaad gacan naga sii doonto insha Allah. wasiir duur ayaa isaga la fahantiisu ka dareen celiyay والله kaashanaya shacabkooda insha Allah horumarkana golayaasha deegaanka ayaa horumarkii goboladii degmooyinka laga sugaya golayaashii deegaankuna shacabka doortay ninka shacabkii doortay wax kala hadhaa ee hakrada loo hado. intaasi kadib ayaa wasiirku waxa kale oo uu dhagax dhigay wado kale oo dhowr kiiloomitir ah taasoo hormari doonta dhakhtarka weyn ee magaalada Boorama iyo sidoo kale wado kale oo tani ka duwan oo laga hirgelinayo xaafadaha Sheekh Cali Jawhar. mar kale madaxda dawladda hoose ayaa wasiirka warbixin ka siisay xaafada Sheekh Cali Jawhar markasta waxay heegan u tahay iska wax u qabsada qaaraankii xaafada Sheekh Cali Jawhar wadadan ay ugu tala gashay kiiloomitirka iyo badhka diyaar weeyaan. intaasi wixii ka dambeeyay ayaa wasiirku waxa uu soo indhayndeeyay hawlaha ka socda garoonka kubadda cagta ee magaalada Boorama iyo saldhig dhinaca nabadgelyada ah oo ku yaala xaafadaha Sheekh Cali Jawhar ee magaalada Boorama. si kastaba ha ahaatee intii wasiirku kormeerkan ku jiray ayaa waxa xusid mudan isla markaana indhaha kamarada telefishinka Hoon Cable TV si gaar ah u soo jiitay mar uu wasiirku ciidamada nabadgelyada oo ammaankiisa si aad u sugayay ka dalbaday inay faraha ka qaadaan koox dhalinyaro ah oo wasiirka ku soo ururay isla markaana wasiirku dhex tagay isla markaana ay isweydaarsadeen Abdullah Ali Yusuf Hoon Cable TV Boorama.